وبعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كلمات runtii iska kooban oo ku saabsiisan waalidka iyo siduu tusaale quman ugu noqon lahaa dadka uu hogaaminayo. dadku mabaadi'da iyo afkaarta iyo waxa la rumaysan yahay talada la dhiibo waxaa ka dhawaaq dheer dhaqanka, hadduu xun yahay iyo hadduu san yahayba. waxa uu afka ka yidhaahdo qofku waxa ka muhiimsan waxa uu sameeyo. waxa uu sameeyaabaana ka raad badan oo nolosha kaga raad badan. aabbuhu siiba waalidku waa mas-uul ama waa hogaamiye, waa guriga ciddii hogaaminaysay. hoggaankana inta badan bini aadamku wuu ku dayda. hoggaanka ku dayashadiisuna inta badan waxay ku xidhan tahay toosnidiisa iyo weynidiisa. alcadama, bini aadamku masaa'ilka caqliga uu jecel yahay waxaa ka mid a cadaaladda, waxaa ka mid a cadamada, weynida. bini aadamku weynida wuu jecel yahay, waana lagu daydaa. cid kastoo naftaada ku weyn oo aad weynayn u hayso waxaa hubantiya ama ogow ama hogaanin inaad dhaqankiisuna kula qurux badnaanayo aad ku dayanayso. taariikhda bini aadamka dadka cudamada ee soo maray, dadku bini aadamku wuu jecel yahay marka laga sheekaynayo. dadka ugu weyn ee aadanaa ilaahay tusaale uga dhigay ee taariikhda bini aadamka soo marayna waxaa ugu sii mudan ambiyada iyo rususha. noloshuna kama maaranto cid lagu daydo. yacni mabaadi'du qiimo ma leh haddii aanay dhaqan gelin, haddaanay wax la taaban kara noqonin, haddaanay noqonin qaab nololeed uu bini aadamku u nooliyay. mabda' nadariyo kastoo qurux badan ceebtiisi iyo wixiisu waxay soo baxaan markuu practicalka noqdo. soomaaliduna waxay dhahaan bini aadamku waa indha ku garaadle bay dhahdaan. yani garaadkii caqliga ahaa waxay soomaalidu siisay isha, waa indha ku garaadle. macnaheedu waxa weeyaan waxa uu arkayo ee dhaqan ah ayaa waxa uu ka raad badan yahay waxa uu maqlayo, waxa loo sheegayo. ilmaha iyo reerka iyo wanaagsanaada caynkan ahaada kan ahaada waxa haddaad maanta oo dhan daldasho waxa ka raad weyn sida aad u dhaqanto, waxa aad samayso, qaabka aad u nooshahay. ilaahay subxaanahu wa tacaala nebigii uu doortay muxamed calayhi salaatu wasalaam fii suurati alancaam ambiyo badan baa ilaahay ugaga sheekeeyey. qur-aanka sidaasaba qisas tiro badan baa ku soo arooray. qisaska ku soo arooray kuwo xunna way leeyihiin, kuwo sanna way leeyihiin. yacni dad xunna waa laga warramay, dad sanna waa laga warramay. waxaana in badan layna leeyahay faactabiruu yaa ulil absaar, ku cibro qaata, ku jaangoysta. ilaahay subxaanahu wa tacaala intuu ambiyo badan qur-aanka kaga warramay xawaalay 17 nebi ama rasuul inta ilaahay ka warramay ayuu nebiga calayhi salaatu wasalaam markii ambiyadaa laga warramay baa ilaahay wuxuu ku yidhi ulaa'ika aladiina hada allah fabihudaahu muqtadi. kuwaasi baa ilaahay leeyahy waa kuwa ilaahay hanuuniyey ee hanuunkooda ku daya baa ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala. kuwaasi waa qiyaadadii bashariyada, waa hoggaankii dunida soo maray, ku daya baa ilaahay leeyahy subxaanahu wa tacaala. innagana nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam siiradiisii iyo taariikhdiisii inta rabbi inooga warramay ayaa ilaahay wuxuu ina leeyahy laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana liman kaana yarju allaha walyowma alaakhir
وذكر الله كثيرا. إلهي رسول كيس وحكسو جنب إلهي لي أسوة أو إسوة كد يشفي عنبا وغسوغان عدي يا كد يا نبي محمد عليه الصلاة والسلام عد آخرة يا ربي كعب سنسة رجينسة عدي هنقريك هايو إلهي سبحانه وتعالى يا وحكتي سيالة يا مالنت آخرة إلهي حسطة إن بدن إلهي حصية كواسي عدة يكد ينيان تصالى وهبالي والنبي عليه الصلاة والسلام. نبينا عليه الصلاة والسلام عائشة وحي كنت المامسة مركي اللي ويديي كان خلقه القرآن رقم كيس يقاب نلوليت كيس قرآن كوها يعني قرآن صعدوها تطبيق عملية سيدا ورادين تبدنت هاي بنا آدمكو رقمكو درادت با إلهي الرسل شبا وصادرة كتاب إلهي وسود شكر إلى معجزة وضدكم أنت أخرستان لفهمه لكن واحد الرسول لو سور راعيي إن غضان أمثلة دي أما تصالياشي حيقاها كور رميي قرآن كان يستغطن هذا ما مبادئ ده هي تصورات كي أفكارته وحيوبا هين نموذج موديل تصاليال لا أركي كارو أو لغضيان كارو dhaqan kastoo fiican oo aynu rabno inay ubadkeenu yeeshaan wuxuu u baahan yahay cidii uu kaga dayan lahaa markaan leeyahay waalidka lagu dayanayo waxaan rabaa inaan tilmaamo inaad tusaale noqoto inay ka muhiimsan tahay inaad waacid noqoto qof wax wacdiya inaad noqoto waxaa ka muhiimsan inaad noqoto qof example ah qof tusaale ah qofka qaa'idka ahina hoggaanka haya ama dadku ay ku daydaan marka uu mabaadi'diisa muujisto ay ka muuqato ayuu credibility helaa ayuu misdaaqiye helaa ayuu qof la aamini kara noqda ولذلك بقى النبي عليه الصلاة والسلام صفات كاللغو صفية وحاوغو جنا الأمانة هي والصدق إنه آمنها رسول شهر نوفر سو قرآن كان نبي ولي بمحوني إني لكم ناصح أمين مددين نصيحين يا وانا هاي أمين وانا هاي الأمانة بين هذان وقيادته كما مارنته قيادته وعيد ربتين عيده قامس قف ربين عيده قامي وقف ربين لقى قضيده وحوضه هي الصدق صدق هو الرنشاق runsheega tii afka qura ugama jeedno dhaqanka inaad ka run sheegto oo waxaad rumaysan tahay tawaynu dhaqankaaga ka muuqda markaasaad run sheegtay saadiq dhaba markaasaad tahay sawgeed waxaan leenahay aabuhu waa tusaalaha koowaad ee gurigu leeyahay sida uu u dhaqmo ayaa waxay ahaan doontaa biidin illaahi tacaala wax ka xog badan haddaanu jirin sida ay ubadka guriga jooga iyo hooyada guriga joogaan ay u dhaqmaan ولذلك بقى إلهي سبحانه وتعالى القرآن كوحي نوغوت المامية إنانو إسخلاف وحي نشيغينو إيوه وحي نكون نقمينا إنا عيبتاي أما إلهي يكتسي وحكفال حنينيتاي يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون warkuwa iimaanka laga helayo maxaa ugu dhawaaqaysaan ama ugu qowlaysaan waxaydan samaynaynin waxaanad samaynaynin maxaad ugu hadlaysaa baa ilaahay leeyahay haddaba tusaalahaasi adduunkana midhuu leeyahay aakhirana midhuu leeyahay haddaad tusaale quman noqoto adduunka midhuu leeyahay oo midhihiisa waxaa ka mid a ubadkaagu inay hagaagaan haddaad tusaale fiican noqoto aakhire midhuu leeyahay oo cid kastoo dhaqankaa kaaga dayatay abaalmarkeedii baad helaysaa waa man dalla calaa khayrin falahu mithlu ajru faacili haddaad tusaale xun noqotana
abaalmar adduun buu leeyahay ubadku dhaqankan bay qaadanayaan iyo dadkii kugu xidhnaa aakhirana wisrigaasaad xambaaraysaa cid kastoo dhaqanka kan qaadata sida awgeed ayaa khayrka in la sheega oo afka laga sheego waxa ka muhiimsan in lagu dhaqmo waxaana ilaahay subxaanahu wa tacaala inoo tilmaamaya dadkii saalixiinta ee uu qur-aanka ilaahay kaga warramay ama cibaaduraxmaan uu ku sifeeyey dhaqamo badan oo ay leeyihiin baa ilaahay tilmaamay cibaaduraxmaanka waxaa ka mid ah salaad ay tukadeen waxaa ka mid ah barya ilaahay baryaya وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما آيات كاسي إلهي لقن كاس بسوتري لقن كاو حكمده وإلهي تلمامي والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وقوة بريدو دو أي كمت إلهي له ربك يو واحد نصيصا haween iyo ubad ishu ay ku doogsato taasi waa baryadii laakiin maxaa ka dhabo ay leeyihiin wajcalnaa lilmuttaqiina imaama inta alla ka cabsatana kuway ku daydaan naga yeel imaam nooga dhig muqtadaa ka u ah ka dadku uu ku daydo inta ilaahay ka cabsataa kuway ku dayato ilaahu naga yeel bay leeyihin haddaba ayuha alxiba waxay dhahdaan qofka bini aadamka insaanku bitabcihi buu muqallad yahay bifitratihi xataa marar badan bay yidhaahdaan ayaa waxaa dhacda qofku caqliga inuu khilaafo isagoo arkaya wuxuu inay qaldan yihiin oo u khilaafo dhaqanka majoritigu u wataan qoladan social scienceska ama psychologyga ka warantaa waxay tilmaamaan Salomon Ash nin ay yidhaahdaan nin yahuudi ah hore kontonaadkii tajribe sameeyey tajribada tani waa nadariyatulqatiic nadariyada yidhaahdaan arday baa la keenay 8 arday 7 la soo heshiiyey su-aalaan idin weydiinaya waxa qaldan ku jawaaba su-aasha si sax ah uga jawaabina qaladkaa sheega midna waxba ma oga dabeetana waa la fadhiisinayaa su-aashii baa la weydiinayaa mid baa qaladkii sheegaya ka kala ku raacaya ka kala ku raacaya waa su-aal basiid oo qaladku u muuqdo kii 8aad aan waxba ogeyn wuu shakeeyaa markaa wuu yara amaamusaya wareegayaa marka dambe iyagu raacaya markuu su-aaluhu soo wada tiro badan su-aalaha waxaa ka mid ah qaar aragtiya xariijima halkaa lagu dhigayaa xaggaana xariijimo kalaa lagu dhigayaa xariijimo way kala dhaadheeriyiin dheeraan ishu ay arki karto laynkaas inaanu laynkaa leekayn waxaa la odhanayaa laynkaa ka leege xagga ku yaalla sheega kuwii la soo heshiiyey laba aan is leekayn bay odhanaya kaa bii baa leeg mana leeka markaasoo kale odhanaya bii baa leeg marka dambe kana uu iska raacaya bii baa leeg buu isna leeyay ishiisii waxay arkaysay ayuu dhaqanka meesha ka socda daraaddeed qola psychology waxay bixiyeen nadariyatulqatiic shibhead theory baa la yidhaahdaa waa nadariya psychology iyo sociology lagu dhigo macnaheedu waa maxay bini aadamku waa indha ku garaadladaa dhaba idan haddii majoritigu ama dadka meesha jooga dhaqanku uu xumaado waa adagtay wacdigu inuu wax taro cultureka inta badanadaya haddaba ilmuhu intuu yar yahay ama guriga jooga ama uu aabbaha wax weyn u arko aabbuhu guriga markuu joogo inta uu ilmuhu yar yahay nolosha oo dhan waxa ula weyn aabihii hooyadii baa dadba ula fiican oo ula weyn beriga dambe uu soo koray dhowr iyo 10 jir iyo meelaha soo gaadhay magaalada ogaado ayaa qaamada aabihii soo yaraanaysa laakiin intan hore aabihii baa wax walba ula weyn idan hadduu aabbahaasi iyo hooyadaasi quman yihiin runta ay run u yaqaaniin oo run sheegayaan ballanka ay oofinayaan dhaqankoodu uu toosan yahay nabigu calayhi salaatu wasalaam yani saynu tusaale u noqono wuxuu tilmaamayaa salaada waxa u fadli badan ragga baa la yidhi salaaday tukadaan tay gurigooda ku tukadaan marka laga reebo maktuubada yani marka faralka laga reebo inaad guriga ku tukataa ka fadli badan masaajidka inaad kuna sunnaysato xataa nabigu wuxuu leeyahay fii masjidi haada
markaasay culamadu yidhahdaa sunnayaasha masjidka nebiga lagu tukado armay ka fadli badantayba sunnaha gurigaaga aad ku tukanaysaa. taa macnaheedu maxay sheegaysaa? waxay culamadu yidhahdaan waxaa la rabaa inaad tusaale xayiyo tukanayo guriga joogo oo dadku ay arkayaan inaad noqoto, inaad gurig saamurka saaad u noqoto. haddaad salaadaho dhan masaajidka kusoo dhammayso guriga marka la seexanayo inaad timaado ma muuqanayso inaad tusaale salaadeed tahay. si awgeed buu nebigu wuxuu leeyahay jamacana kaalaya, sunankana waxaa ku tukataan maxay? gurigiinna ku tukada buu tilmaamaya. haddaba waxaan leenahay dadka yaryar, dadku markay yar yihiin ilmuhu wuxuu soo bilaabaa bay yidhaahdaan koritaanku psychologically wuu isbedelaa. caqliga qofku siduu u korayo, jirhkiisu siduu u korayo, waxoo dhammi way iswada bedelaan. markuu yar yahayba wuxuu bilaabaa bay yidhaahdeen xaasatul iltiqaat baa xoog u shaqaysa bay yidhahdaan. waxa hareerihiisa marayoo dhan wuu maabgaraynaya, u qabanaya. waxay yidhahdaan he's like a radar bay yidhahdaan. raadaarku soo marka halkaa la dhigo dayurad kasta iyo wixii meesha duulaba raadaarka waa laga arkayaa. ilmuhu waxa meesha ka socdoo dhan wuu arkayaa bay yidhahdaan. waxaa kaloo xoog u shaqeeya bay yidhaahdaan khaasatul muxaakaa waliqtidaa, ku dayashada. waxa uu maqlaya uu arkayo wuu qabanayaa, kadibna wuxuu tijaabinayaa inuu yadii sameeyo. wax kaloo dhan baa ha ka fekerin. waa siduu afka ku barto. afka muxuu ku bartaa qofka yari? wuxuu ku bartaa wuu ina dhegaystaa, waxaanaynu ku hadlayn iyo waxaanaynu wadnuu dhegaystaa, kadibna wuu tijaabiyaa ilaahay uu ka barto. noloshoo dhanna waa siduu ku yihi. haddii uu aabbuhu good example yahay markaasi adigu ma ogid, laakiin isha ilmahan yari way qabanaysaa. ballankaaga, runtaada, waxaad sheegayso, saaad u dhaqmayso, dagaalkaaga, cadhadaada, wax kastoo agtaada adiga ka socda isagu wuu qabanayaa, waanu ka fal celin doonaa markaa. haddaba waxaan leenahay haddii dadka waaweyn ay tusaale u baahan yihin, bal ee saalixiintu ay u baahan yihiin, bal ee nebi maxamed loo tilmaamay oo inta ilaahay uga warramay calayhi salaatu wasalaam ambiyo la yidhi ulaa'ika kuwaasaa kuwaan hanuuniye ilaahay yidhi ee fabihudaahum iqtadih lagu yidhi. dadkii waaweynaa lagu leeyahay laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana. haddii qofkii maankiisa qabay ee caqligiisa qabay weynaa ama mujtamacii kobocsanaa uu u baahan yahay tusaale uu ku daydo, maxaad u malaynaysaa qofka yar markaa ama dadka guriga jooga? maxaad u malaynaysaa iyaga? waa sababtaa awgeed sababtuu nabigu u leeyahy fa abawaahu yuhawidaani aw yunasiraani aw yumajisaani. waxaa loo leeyahy waa kaa. waxaa markaa aabbaha toosani waxaan leenahay waa waladiina hum liamaanaatihim wacahdihim raacuun. waa kuwa ammaanadooda iyo ballamadooda ilaaliyabaa ilaahay baa ku tilmaamaya. qur-aanka ilaahay wuxuu leeyahay laysa biamaaniyikum walaa amaaniya ahli lkitaab. waxaad jeceshiin, waxaad doonaysaan, waxaad yididiilanaysaan idinka iyo ahlu kitaabku toona maaha baa la yidhi. man yacmal suu-an yujza bih markii lasoo yidhi ayaa haddana ilaahay wuxuu aayadda ku xigta leeyahy waman yacmal min asaalixaati min dakarin aw unthaa wahuwa muumin. cidda samaysa. idan waxay culammadu yidhaahdaan camalka iyo falka muhimka ah. camalka iyo shaqada iyo falka ayaa muhimka ah. haddaba aabbe iyo hooyada raba abnaadooda iyo caruurtooda inay qiyam iyo values iyo dhaqamo fiican ku beeraan, waxaan leenahay in horta adigu toosnow. adigu toosnow oo inta aad adigu matasho ayuu matalaya. si uu taa nebigu u tusiyo ayaa calayhi salaatu wasalaam xadiiska abu daawuud uu soo arooriyey bayhaqiba fi shucabi, sheekh alalbaanina xasan ligayri ku sheegayo. cabdillaahi ibnu caamir saxaabiga la yidhahdaa wuxuu leeyahy iyadoo nebigu gurigayga joogo ayay hooyaday ii yeedhay maalin buu yidhi, nebiguna gurigu fadhiyey. waxay tidhi kaalay hooye waxbaan ku siinayaa. maxaad siinaysaa buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam. waxay tidhi waxaan rabaa inaan timir siiyo. haddaanad siin lahayn buu nebigu yidhi been baa lagu qori lahaa.
يعني محل ديديا المها ير حتى هدي لو يريو للربا إلا قبطه إنان بين لغوص صبين marka haddaad aanad waxba siin lahayn aad u yeedhi lahayd baa layidhi been baa la qori lahaa sida awgeed macnaheed waxa weeyaan inaynu good example noqono inaynu inagu qumanaano waxaanad adiguba ahayn inaad ilmaha ka doontaa waa yara adkaanaysa weliba marka uu bulsho kale oo iyana tusaale u alla joogo tusaalanimadu siday u adagtay waxaad tilmaamaysaa xataa arkaantii islaamiga ahayd nabigu calayhi salaatu wasalaam af oo qura kama sheegine wuxuu yidhi salluu kamaa ra'aytumuunii usalli aniga ii eegta oo sidaa aragtaan inaan u tukanayo u tukada yacni waa ishu siday u xoog badantee wax u qaadayso daraaddeed ba waxaa la yidhi salaadii uu nebigu leeyahay qoladii wafdigaa timi maalmaha nala joogtaan salluu kamaa ra'aytumuunii usalli buu yidhi ii eegtoo sidaa aragtaan inaan u tukanayo u tukada xajkii buu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku leeyahay saxaabada khuduu cannii manaasikakum iga qaata manaasigtiinna iyo mawaaqiftiinna iyo meelaha istaagaysaane xajka igu dayda waxaan samaynayo halkaan istaaga halkaan ku ducaysta halkaan dhagaxa ku tuura halkaan ku tukada aniga iyo eegta buu leeyahay nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa muuqda qofka way kaga raad badan wax kale walidaalik buu nebigu xataa isagoo og saxaabadiisii inay yihiin isagoo ictikaafsan habeen oo masaajidkii jooga ayay soo booqatay xaasaskiisii mid ka midi dabeetana cabaar buu u sheekeeyey cabaar markuu nebigu ugu sheekeeyey masaajidka gudihiisii ayay xaaskiisii iyo isagii israaceen nebigu calayhi salaatu wasalaam iyagoo sii wada socdaa laba saxaabay arkeen dabeetana dhan bay uga weecdeen mahlan calaa rasulikuma buu yidhi waxbaa degdegina waa safiya buu yidhi waxay yidhaahdeen ilaahay rasuulkiisiiyow yacni ma inaanu ku tuhumaysanaad ka cabsanaysaa xaasha inaanu saasi dhacdahay wuxuu ku yidhi nebigu shaydaanku majra dam halka dhiigu maraabuu bini aadamka maraayeen wax idinku soo tuurabaan yacni ishu waxay aragtaa waa inay siday u raad adag tahay xataa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa waxa uu tilmaamayaa gabadhaa la socota ay arkeen inay si kale u fasirmi karto marka siday ishu iyo dhaqanku iyo qofku tusaale uu noqdo ayaa muhiima haddaba haddaynu tilmaamnay waxaas aynu sheegnoo dhimi waxa weeyaan qudwadu inay khatartay qofka raba haddaba inuu qudwo noqdo maxaa laga rabaa haddaynu tilmaamnay inay qudwadu adag tahay oo lagama maarmaan ay tahay qofka aynu rabno haddaad rabto in lagugu daydo waa inaad maxay samaysaa si kooban dee waa inaad muslim dhaba noqotaa wixii alliya rasuulina faranaynu fulino waxay yidhahdaan kow asilaax waxa ugu horeeya inaad qof quman noqoto qumanaantay sheegayaan waxay yidhahdaan waa fii baabi alcaqiida wa fii baabi alcamal wa fii baabi alikhlaas waa inaad toosanta caqiidadu waa waxa ay ka dhalato tasawuraadka iyo afkaarta iyo aragtida iyo qiimaynta iyo value waxaasoo dhammi waxay ka dhashaan waa wuxuu qofku rumaysan yahay waxaad rumaysantahay hadduu qaldan yahay aragtiyaha iyo afkaarta iyo waxa kaa soo burqanayaana waa qaldanaanayaan caqiidadu hadday saxantahay markaa waa inuu qofku caqiidadu saxantaa dhaqankiisuna waa inuu saxmaa oo waxa uu rumaysan yahay uu sheegayo waa inay ka muuqataa maxay dhaqankiisa cibaadadiisa iyo wixiisa ikhlaas waa inuu ka muuqdaa ikhlaasku waa maxay waxaynu la rabnaa noloshoo dhamm inay noqoto maxay midaynu ilaahay ugu dhowaanayno waa inaanay manaaficda dunawiga ka dhex muuqanin inkastoo noloshan dambe xataa waxyaabihii qurubaadka ahaa maadiyaad bay isu rogeen noloshu markay adkaatay ayaa wixii qurbada ahaa tafsiirkii la akhrinayay muxaadaradii la dhigayay qur-aankii carruurta loo dhigayay imaamnimadii dadka la tukanayay xataa waxaas oo asalku uu ahaa inay qurbo noqdaan waxaad moodaa nolosheennan dambe inay maadiyaad xataa iyagu isu rogeen xataa iyagii baa lacaga noqday noloshii kale maxaad u malayn asalka diintuna waxa weeyaan in la dareemo xuduudu nafsiga inay naga baxdo dheef adduun inaynan wax ku rabin
asalkii diinku waa kaa asalkii diinku waa maxay wax kastoo aad qabanayso waxa asal u ah dheefta inaad ilaahay ka rabto inaad dee janno raadinayso dheef waad raadinaysaa laakiin dheefta ah maxay taa weyne dambaysa ah idan waxaan leenahay qofka raba inuu qaa'id ummadu noqdo qiyaadadu ama tasare ha noqoto had iyo goor marka qiyaado la sheego dadku madaxweynayaasha iyo ra'iisul wasaare kuwaasay eegaan laakiin war waa isku mid guri hogaamisaya iskuul hogaamisaya masaajid hogaamisaya malcamad hogaamisaya bulsho yar community hogaami waa isku mid way yartay bini aadamka qof aan cid hogaaminaynin dawaa'irta inuu hogaaminaynuun baa kala kooban laakiin cidba cid unbay hor fadhidaa ugu yaraan islaan iyo dhowr carruura baad ayaad hoggaanka u haysaa idan waxaan leenahay qof kastoo hoggaan haya waa inuu qof silaax uu ka muuqda noqdaa laba waxaynu leenahay xusnulkhuluq xusnulkhuluqu waa valueska aynu rumaysannahay inaanay wacdi noqona inay muuqdaan ilaahay qur-aanka markuu nebi maxamed ammaanayay ammaanaha ugu sarreeya qur-aanka ugu yaalla waxaa ka mid a wainaka la calaa khuluqin cadiim baa ilaah yidhi amase aayadaha ugu cajabta badan leh waxaa ka mid ah aayaadka ilaahay uu kaga warramayo ghaswat alaxzaab ghaswat alaxzaab dhacdaa dhacday argagax badan dhacdadaasi waxaa sababay mashaakil ay saxaabadu geysteen وأن هذا مركز يرادين قل هو من عند أنفسكم بل لو جوابه مشاكل أيجو جيستين مشاكل كسوة حكرت بمي إن مسلمين تي أي لا يو تضباط تنظيمته قارب حصدان فرد كي أحد كعري دي مقالد وقالي مدينة وقالي مشاكل بدن النبي عليه الصلاة والسلام رب بدن يسوق قاعدو قضية دا يدو إلهيك والرمية هي آيات كالتعقيبين وحكم دين إلهي فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إلهي وحوله نحريس حقا لك تمي هدانا دوقود دبعين هداد قف أدق أهان لهيد ويكايا علهيد ولو حق شيقني يعني أخلاق دو waa waxa keena qofku inuu dad la socod noqdo cibaadada qura maaha dad iska salaad badanto wardi badanto haddana jacor tahay cidna ma wadi karaysid laftaada waad u cibaado badanto waad u wardi badanto waad u salaad badan tahay laakiin wax ma hogaamin karaysid dad jacor soo baxdo sawgeed buu ilaahay wuxuu quraan ku leeyahay naxariistu waa waxa keenay baa ilaahay leeyahay inaad wax hogaamiso haddaad noqon lahayd baa ilaahay leeyahay qof adag oo qalbi engegan dadku way kaa yaaci lahaayeen saxaabadii qaldanta haddana waxaa la yidhi facfu canhum wastakfir lahum cafi oo ilaahay dembi dhaaf u weydiiye qofka aan cafiskaba aqoone wax walba tiriya caruurtu khata ay gashiya wax walba buugga madow ku qora uun sina waxba ma hogaamin karayo سأوجد بها إلهي يوضع وحاسد دعين بهدنا اللي فاعفوا عنهم واستغفر لهم وحكلوا اللي يري وشاورهم في الأمر أرن كان الله مشاركة وضدك أخطاء كرد عضي يهدنا وحلة الماما يني أرنك وحكول ينا وحلق السيو كو بركا وحلنا قفك دد هكامينية يلا الربو إنه أبقوا من نغضو عقيدة دي سيا عبادات كسيا أخلاص كسيا وإنه توصى لبا أخلاقياتكم وين ونكسن هذا صدح ورك يدقنكم وين يسوافقان قولك يا عملكم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون بإلهي إلهي وحلي ضدك ما وناقا وشي يسان نفيهنا وإلا بيسان إذن كو كتابك هدانا آخرين ورميادا عقل إلهين با إلهي لي تي عقل وحو شيغي وناقا شيغي سنة دادو سكبير أوضو عقل يقعين كاسو شيغي لما ورنا ورميادا شرعي قريني وحلي ورميادا عقل إلهين إذن قولك إيا فعلك هدوس وافقه
waxaad dadka u sheegaysiiya adigoo dhaqamadaadu hadday iswaafaqaan waa aabbihii qaa'idka ahabaad noqonaysa. qodobka afraad aan ku gabagabaynaya wuxuu yahay waa inaad garanaysaa qaababka dadka loo ta'hiiriyo loo raadeeyo iyo wasaa'ilka ama asaaliibta ama qaababka wax loo hogaamiyo. maalan laba tusaalaan bixinaynaa. aabbaha mithaaliga ahi ama qaa'idka mithaaliga ahi waa mustamic jayid bay yidhaahdaan. waa qof wax dhegaysta. qof wax dhegaysta. waxaan uga dan leenay innagu Soomaali ahaan inta badan dhaqankeennu ma laha dadka yaryar in la dhegaysto. dhaqankeennu waa dhaqan u eeg inta badan dhaqanka askartoo kale, thaknaat alcaskariya, sida loo kala sarreeyunbaa awaamir laysu siiyaa, waxba kale laysma weydiiyo. waa amar saa. ninka Soomaaliga ahi guriga inuu amaamur ka bixiyo buu jecel yahay. yararka saa yeela, idinkuna saa yeela, islaanta saa yeel, qolada sacanka ha yeesho, dabeetana uu ka baxo. waxaa ka roon inaad horta dhegaysato. carruurtaada baran maysid weligaa inaad dhegaysato mooyaane. adiga way kula quman yihiin uun markaad ilaa askarigaa wax amraya taysna waa kaa baqayaaye waanu fulinayaaba laga yaabaa markaa uu ku hortaagay wuxuu sameynayay. laakiin isma baranaysaan ilaa aad ka sheekaysiiso dhegaysato, ilaa ay dhab noqoto waxa uu dareemayo inuu kuu sheegi karo. wuxuu qabana ma daweyn kartid inaad ogaato mooyaane. idan waxa fiican inaad mustamic jayida noqoto marka hore, qof wax dhegaysta, dadka warka ka dhegaysta. ka labaadna waxay yidhaahdaan muxaawir maahira inaad hadhowna noqoto, qof si fiican wax u qancin kara hadhowna. warka markaad dhegaysatay qaadatay qof wax qancin kara. tusaale waaxida, nabiga calayhi salaatu wasalaam majlis fadhiyo oo saxaabadii la fadhido ayaa wiil dhallinyarii u yimi. dabeetana wuxuu ku yidhi waxaan rabaa anugu in zinada lay fasaxaa baan doonayaa buu yidhi. waa wiilkaa dhiiranaya intuu saxaabada soo dhex maray nabi maxamed u tegey. waxaanu ku leeyahay waxaan rabaa suuqa in aniga laygu sii daayo, halkaa masale baan doonayaa in lay fasaxo. nabigu calayhi salaatu wasalaam waa dhegaystay warkiisii. saxaabada qaar baa hadlay, wuxuu yidhi suga. wiilkii soo dhowow buu yidhi udnu udnu udnu. wuu soo dhowaaday. xiwaar buu la galay marka. xiwaarku la galay waa xiwaar aqligiisu uu garan karo wiilka kan. wuxuu yidhi niyo waxaanaad doonayso hooyada miyaad la jeceshay buu yidhi. zinada miyaad hooyadaa la jeceshay? may buu yidhi. miyaad walaashaa la jeceshay? may. habaryarta, eedada, dumarkii qaraabada ahaa buu nabigu tilmaamay. inankii wuxuu yidhi maya, anigu reerahayaga waxaas lama rabo. wuxuu nabigu u tilmaamay dadka kalena, dumarka kalena cid unbay hooye u yihiin ama walaalo u yihiin ama inan u yihiin ama eeddo u yihiin ama habaryar u yihiin. dadka kalena lama jecla. dabeetana wuu u duceeyey. maxaan uga dan leeyay? uga dan leeyay haddii aad mustamic jayida tahay mashaakilka jira aad ogaanaysaa. haddaad qof wax dhegaysta tahay waxa jira aad ogaanaysaa. haddaad muxaawir maahira tahayna waxbaad cilaajin karaysaa, waxbaad daweyn karaysaa. dhibta jirta ayaad daweyn karaysaa. idan labada goor midna kuma fiicna. inaad waxba dhegaysan weydaana ma fiicna. marka dambana inaad amar uun bixisaa ma fiicna. inaad xiwaarka taqaanaa fiican. marka horena waa inaad mustamic jayida tahay. marka dambana waa inaad qof muxaawira oo doodi kara oo qancin kara oo mufaawadaad samayn kara waa inaad noqotaa. aabbuhu toosnidiisa waxay ka qayb qaadataa ilmaha toosnaantiisa. qalloociisuna bulshada qallooceeday ka qayb qaadataa. waayo ilaahay qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa, laba aayadood oo qur-aan ka mid ah ilaahay wuxuu tilmaamayaa duul diiday waidaa qiila lahum tacaalow ilaa maa anzala allahu ila arasuul. war waxyiga iyo rasuulka wixii loo soo dhiibaya alle wixii uu soo dejiyey kaalayoo qaata baa la yidhi. maxay ku jawaabeen? qaaluu xasbunaa maa wajadnaa calayhi aabaa'ana. aabbayaal wixii laga dhaxlaa nagu filan. aabbuhu waa khatar marka hadduu qalloocdana, hadduu inkaarqaba yahay. wixii laga dhaxlay wax daran hadday noqdaanna kuwani waxay la lumeen. xasbunaa maa wajadnaa calayhi aabaa'ana.
إلهي وحولي أولو كان آباءهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون أبا يلمي الله يسكر راعية داني وحنا قرنين هانون صناينا أوكي وحنا ليناي أباها قوريك جوغا دان وحنا قرنين هانون صناينا الرورت وي راعيسا وحا أوضا بيكون راعيسا إذن أدا لقا قبا هيناد وحنا قرطا هانون طنا داد رفتين كوني هقاقان أدو وحنا قرو هانوننا آيات اللبادنا إلهي وحليه في سورة البقرة وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون وسيدي يوكالي والراعي الدين تمرك الله إله وحي ما يوحي أنه كسو قاعدني آبايال بانو غفلا إلهي وحليه ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون أباياشود هدي قراد لا ويا لهايين أن جدك الصحة أهينين نم يا الراعية waxaan ku soo koobayaa leeyahay aabbahaya siduu u dhaqma ayay u badan tahay gurigu inuu u dhaqmo haddaan dabadda ka imanin wax ka xoog badani haddaanay dabadda kaga imanin maxay wax ka xoog badani waa suurtagal aabbahoo fiican wax ka xoog badan inay dabadda ka yimaadaan waa suurtagal aabbahoo xun wax ka xoog badan inay dabadda kaga yimaadaan laakiin asalku waxa weeyaan intan uu hogaaminayaa siduu isagu u dhaqmaabay inta badan u dhaqmaya warkaygu markaa wuxuu ku kooban yahay carruurtii baa xumaatay ama carruurtii baanu u taag weynay armay ka horraysaa aabbayaashii baa loo taag waayey haddii aabbayaasha loo taag helo kuwan yaryarna in loo taag heli lahaa ama hooyayaasha haddii loo taag helo in kuwan yaryarna loo taag heli lahaa in badan waxaynu ku celcelinaa tarbiyatul awlaadka hala sameeyo tarbiyatul awlaad haddaad maanta oo dhan kutub akhrino oo manaahij danno laakiin ciddii hormuudka ka ahayd ee tusaalaha ka noqon lahayd iyadoo aanay qumanaanaynin waa adagtay inuu kan yari qumanaado marka warkaygu wuxuu ku kooban yahay war nabi maxamed baa ilaahay yidhi calayhi salaatu wasalaam kuwaa ku dayo innagana nabi maxamed baa layidhi ku dayda dadkan yaryarina kuwan ka waaweyn bay ku dayanayaan kuwan waaweyni ha qumanaadaan kuwa yaryari waynoo qumanaan doonaan bal ee waxaa la arkaa haddaad adgu qumanaato ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa qumanaantii waalidka qaar loogu naxariisto waxoodii loogu ilaaliyay fii suurati alkaaf wakaana abuuhumaa saalixan baa ilaahay yidhi aabbayaashood baa ahaa ayaa saalix ahaa dabeetana bisilaaxihim ayay intifaacsadeen kuwan yaryaroo ilaahay subxaana wa tacaala waxoodii ugu dhowray idan salaaxu waalidku in sha allahu cidla dhici maayo laakiin waxaynu leenahay innagu aan noqonno aabbihii lagu dayan kari lahaa sala allahuma calaa muxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasalam walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin